السلام عليكم. walaal maanta waxaan rabaa inaan sheego maalin walba waxaan aragnaa dad dhahayo maxay sidii online-ka sida lacag looga sameeyaa. Online-ka horta waa laga sameyn karaa, laakiinse waxaa ka fiican marka hore inaad taqaantid sidii luqadda Ingiriiska. Waayo wax walba oo hadda online inta badan waxaa waaye inaad ku xiran yahay inaad luqadda Ingiriiska inaad taqaantid. Haddii kale aad ugu dhibtoonaysaa. Anigoo hadda luqadda Ingiriiska aqaano ayaa waxaa iga khasaartay lacag xoogaa badan oo weliba jooga wadamada reer galbeedka. Marka waxaan ahay walaalkayga Soomaali walaashayda oo rabto online-ka inaad lacag ka sameysid. Marka koowaad soo baro luqadda Ingiriiska, marka labaadna xirfad baro, wax walbana iska hubi inta lacagtaada aad gelin iyo waqtigaada. Waxaan kaloo kugu diri lahaa qofka muslimka waxaa la rabaa marka koowaad inuu diintiisa iska dhiso. Adiga wax walba Ilaahay ku faro inaad sameysid, wuxuu Ilaahay ka reebana inaad sameynin. Kadibna wax ugu muhiimsan aad sameyn kartid oo maanta kuu sahli kara inaad xirfad baratid, shaqo inaad heshid, waxaa waaye istighfaarta. inaad istighfaarta badisid. walaal fadliga istighfaarta quraanka waa lagu sheegay in istighfaarta lagu helo caafimaad, lacag, caruur iyo janno. wax walba waa ku heli kartaa. walaal waa inaad aamintid. quraankana waa noo sheegay adiga istighfaar badan la imaad 1000, 2000, 3000, 10000 xitaa la imaan kartaa maalin walbo. aayadaha quraankana waa kuwaana. bismillahir rahmaanir rahiim. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنينا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. waxaa soo gadataa electronic tasbiixaada ku caawinaya insha Allah. waxaa rabto waa helaysaa. walaal ku soo biir Wanaag Media, follow dheh, muuqaalkana like saar.